barasaabka gobolka Daadmareer Caliid Cawli Cabdi ayaa maanta soo indheeyay mashruuca beeraha ee tuulada Beerato taas oo haatan iskaashatooyinka mashruucaasi ay ku hawlayeen sidii u goosan lahaayeen dalagyada kala duwan barasaabka socdaalkiisa ku wehelinayeen taliyaha qaybta iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Oodweyne ayaa ugu horreynba waxa uu uga warbixiyay xaaladda beeralayda iyo sida ay u shaqeeyaan isuduwaha beeraha gobolka Daadmareer Jamaal Deeq Maxamed waxaana hadaladiisii ka mid ahaa annagu ka wasaaradda beerahan waxaan ka caawnay 40 qoys oo aanu siinay 2 saacadood waxaan kala gudoomiyay halka ka jirta iskaashatooda rasmiga ah ee gobolkooda Daadmareer inay tahay Beerato koowaad leh cagaf iskaashato wasaaradda beerahan siinay naga caawsay hay'adda EDO waxaan siinay shinidii maanta halkan baxaya inta badan aragto qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo taliyaha qaybta ayaguna halka ka hadlay ayaa ku amaanay beeralayda iyo sida ay u beerteen wax soo saarka ruuxantii dariiqadan waa dariiqa 2 qarni iyo bar jirtay waxaanay ku caafaxday Beerato ay magaca kula baxday wax soo saarka waana dad cid walba leh oo iskaashata anoo galbeedka human correction bariga ayaa waxaan ka baxay Soomaaliland lahayn haddii aan madax joogno banaan ka daawadana kulay isma ilaahdeen imeelka kamarada iyo gudoomiye ka soo qaaday baan la laakiin waxa muuqanaysa maanta dhulkii in si wanaagsan loo beeray Ilaahay raxmad siiyay gabagabadiina gudoomiyaha gobolka Daadmareer Caliid Cawli Cabdi oo hadalka qaatay ayaa waxa uu yiri mashruuca Beerato kaasoo la arkayo in si fiican u baxay sanadkan oo midho fara badan ay ku yaalaan haddii haruurkii tahay haddii sinsintii tahay haddii yarabaqidii tahay wax badan ay ku yaalaan runtii tacabka inta leeg ee saaka gobolka ka muuqda waa mashruucii koowaad intaasoo mashruuc oo kala jira oo ah lixooyinkii xaaxi oo sidan oo kala ah waxaan filayaa haddii saaka sidaas oo kale mashruucan looga wada faa'iideysto in gobolku raashinkiisii dibadda uu ka keenayay laga bilaabo sanadkan rajaynayo inuu gudaha ay ka helaan Layla Careef Maxamed telefishinka caalamiga oo Cable TV magaalada Oodweyne